السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaantiinba aad iyo aad idin salaamayaa. caawa waxaan jecelahay waxaanu ka hadli doonaa arrimihii la xiriiray COVID-19ka iyo sida uu Soomaalida saameynta ku yeeshay gaar ahaan magaalada Eden Bristol. caawa barnaamijkan waxaa igala qayb qaadanaya Xaashi Xuseen oo ka shaqeeya arrimaha caafimaadka lana shaqeeya GP-yada qolooyinka loo yaqaan Health Link Workerska, waana shaqaalaha ku hawlan adeegyada caafimaadka weliba xiriirinta bulshada iyo mihnadlayaasha caafimaadka. Isaguna waxaa nala jooga Cabdulaahi Farax waa maamulaha xafiiska Somali Resource Center, waana xafiiska keliya ee u furan Soomaalida ee akhbaarta laga qaato iyo wixii tala ah, gaar ahaan markay noqoto xagga waxaan aynu afka qalaad ku nahdo advice and information. Isagana waxaa kaloo nagala qayb qaadanayo ila jooga Siciid Buraale. Siciid wuxuu ka socdaa Somali Forumka, waana gudoomiye ku-xigeenka, waana dallad loogu talagalay inay xiriirkii bulshada ay hayso ay ka shaqayso badanaaba iyo si isugu soo dhaweyn lahayd wada shaqaynta hay-adaha u adeega bulshadeena. Haddaba COVID-19 adduunyadoo dhan buu saameeyey xanuunkan coronavirusku. runtii Soomaalidana meel walba ay joogaan warbixinadu waxay sheegayaan inuu si gaara u sii saameeyey oo si gaara u taabtay, hadday noqoto UK, hadday noqoto Europe, hadday noqoto America iyo meelaha kale oo dhan. runtii waxyaalo badan culays badanna wuu keenay. dadku waxay ka eegaan xaggii dhaqaalaha, laakiin xaggii caafimaadka culays weyn buu ka keenay, weliba caafimaadkii jirka iyo kii maskaxda labadaba. Haddaba waxaan doonayaa bal inaynu intii hore warbixin intaan siino, bal iyagana aan wareysto mihnadlayaashan khubaradan ku hawlan adeegidda iyo kobcinta arrimaha bulshada. runtii daytada maanta soo baxday waxay sheegaysaa waa ku dhowaad maalin walba ilaa 60,000 oo qof ayaa yani uu ku dhacaa bahalku. 7 cisho ugu dambeeyayna UK wuxuu ku dhacay ilaa 417,000 iyo badh. maalin walba marka celcelis ahaan la eego ilaa laga soo bilaabo weliba maanta waa 10 January, waxaa celcelis ahaan u dhimanayay 560 qof in ka badan. 7 cisho ugu dambeeyay UK waxaa ku dhintay 6,400 qof ku dhowaad ah. magaaladan Bristol aanu deganahay aanu ka hadlayno waxa weeye marka la eego Soomaalidu waxaanu ku jirnaa waxaanu nahay dad laga tirada badan yahay. runtii magaalada waxaa ku nool nus milyan ilaa 500,000 oo qof. Soomaalida waxaa lagu qiyaasaa tiro saxa lama hayo, waayo Soomaalidu markay timaado tiro koobka kuma jirto, ma laha category gooniya oo la yiraahdo Soomaalida lagu soco, laakiin waxaanu isticmaalnaa Black African. marka laakiin waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin 10,000 oo qof, inkastoonu ognahay in aynu ka badannahay oo aanu ay aad iyo aad nooga badan tahay runtii marka la eego. iyaguna ay aad marka waxa weeyaan, laakiin dadka ku dhaca maalin walba 10,000 qof waa 2% ayay ka yihiin magaalada dadka marka la eego. maalin walba waxaa ku dhinta 321 qof magaalada Bristol ayuu ku dhacaa, baan u jeedaa raalli ahaada. 7 cisho ugu dambeeyay wuxuu ku dhacay 2,300 qof in ka badan. marka la eego 28 cisho ugu dambeeyay inta Bristol ku dhimatay, celcelis ahaan maalin walba 4 qof baa ku dhimanaysa. 7 cisho ugu dambeeyayna waxaa ku dhintay 25 qof. runtii marka la eego waxa weeyaan, inagu weyn ognahay wiigii ugu dambeeyay 2 qof baa inaga dhintay. haddii la eego 6 wiiga ugu dambeeyay celcelis ahaan waxa mar walba inaga dhimanayay wiigii 2 qof. marka haddii la eego waxa weeyaan 7 cisho ugu dambeeyay tiradii dadkii dhintay 8% Soomaali bay ahaayeen. waxaynu ognahay Khamiistii iyo Jimcihii magaalada waxaa ku dhintay oo cudurkan u dhintay 8 qof, 8 Soomaali ah. marka waxa weeyaan 25% qof dhimashadu inay Soomaali ahayn. runtii waxaa la isweydiinayaa waayo maxaa keenay inuu aad inoogu bato, aad bay inoogu dhacaa, dhakhtarrada waynu jiifnaa. runtii xogta aan la baahin ee aanu ka helayno ila xoggaali ee dhakhaatiirta ka shaqeeya waxay sheegayaan ilaa iyo intii 7 bilood ka hor oo xanuunkani bilowday in mar walba dhakhtarka ay ku jireen dad Soomaali, weliba dadka ay xaaladooda culus tahay ee la geeyo in halkan loo yaqaano ICU
yuga ama mataqaanaa intensive care unitka dadka koomaha gala in marnaba aanay Soomaali marna ka maqnaanin weliba mararka qaarkood haddii ay 8 qof ku jiraan ama 9 laga yaabo inay 3 ama 4 ka mid Soomaali noqoto runtii waa tiro aad u badan marka la eego magaalada half milyanka qof degan yihiin in mar walba qof iyo 2 iyo 3 Soomaaliya ay xaalad culus ku jiraan haddaba waxaan doonayaa balcaawa inaynu isweydiino war sidee looga bixi karaa maxaynu qaban karnaa doorkii hore runtii saameyn nagu yeeshay doorkii hore uu ka yaraa ma dadaalkeennii baa yaraaday ma innagii baa hoos u dhac samaynay marka waxaan doonayaa bal inaan ka bilaabo xaashi xuseen oo ka mid ah runtii minhadlayaasha ku howlan arrimaha caafimaadka ahna linfeker xaashiyow maadaama aad tihiin halka ugu horeysa ee dadku yimaadaan jiibiyadiina la shaqaysaan tiradan korodhay ee Soomaalida maxay inoo sheegaysaa sidee sal wax looga qaban karaa okay alxamdulillah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh cabdi waad mahadsan tahay kollayba technology-ga aad uma aqaano ma garanayo inaan ku jiro meesha iyo in kale laakiin kolley zoomka waan iska arkaya marka xagga technology-ga haddaan ku feelgaroobo from the old school baana ralliga hadda haddaan soo noqdo su-aashaadii cabdiow aad bay u mahadsan tahay waxa weeyaan forumkan idinoo soo qaban qaabisay inaynu arrimahan kaga hadallaa waxa weeyaan arrin inagu cusub horta iyada midi waa mid technology-gan digitalka ah ee iminka adduunkii oo dhan howlahoodii oo dhan ay ku wataan hadday iskuul tahay hadday jaamacad tahay hadday shaqo tahay waynu ku yarnahay weli waxaynu maaragtay maskaxdeennu ay ku ajadgaysan tahay waddadoo lagu yar wada hadlay iyo makhaayadihii oo aan jirinba oo aynu isku arki jiray iyo waxaasoo dhan markaa horta digitalka waynu ku cusubnahay waa technology cusub oo inoo soo ballan qaaday iyadoo safetygii aynu ilaalinayno iyo kala fogaanshihii iyo imaatinkii oo inaga qudheenu ay tahay inaynu hormood ka noqonno inaynu ku xidhiidhno arrimahan oo kale iyo aaladahan oo kale aad bay u wanaagsan tahay waanan dhiiri gelinayaa dadka badankooda inay kasoo qayb galaan waxaanan filayaa wixii imika ka dambeeya ama markan ku xiga inay train intan ka badin ay kasoo qayb geli doonto waa bilowgii waanad ku mahadsan tahay cabdi dadaalka dheeraad ka samaysay cabdi horta waxaad moodaa waa xogagaal xog fiican baad haysaa statistiskii ama caafimaad ahaan aynu lahayn ama aynu sheegi lahayn waad sheegtay waad haysaa waxa meesha ku jira waxa weeyaan horta kolleyba shaqadeedii annagu caafimaad ahaan iyo halkay dadku noogu iman jireen iyo halkan maalin walba isku arki jiray xanuunkan qudhiisaa bedelay oo dadka from home ka shaqaynaya baanu nahay oo weli imika muddada sanadka ku dhadhow ee u maqnaa xafiiskii iyo shaqadii maanaan tegin telefoon baan lagu soo xidhiidhaayo oo wixii aanu ka caawin karna aanu ka caawinaa dadkiina iyaga qudhoodii way u qaadan laayeen inay arki waayaan oo maalin walba adigoo u sheegaya haddana meeshii bay tegayaan oo arwanku waayo xaasho oo meeshii maad joogin oo aad ba ulama socdaan waxaa haddaba jirta iyadoo is araggii dadku ay ku dheeraynayeen ee personalka ahaa uu saa u yaraaday waxa weeyaan kolleyba taladii iyo tala bixintii iyo wixii qoraalkana soomaalidu sidaad u sheegtayba aad uguma dheerayso waxay aad u jecel yihiin maaragtay dee lifeka iyo maaragtay wadahadalka iyo tan sheekada ah tii sheekadii is araggii qudhoodisiina meelihii lagu kala qaadanayay way yaraadeen tanna weli uma bislin imikay bilow inoo tahay horta marka kolleyba information kala qaadashadu sidaas ayuu maaragtay u yara gaabinayaa laakiin daatadu waa sidaad sheegtay aad baa loola yaaban yahay qolada caafimaadku way la yaaban yihiin proportionally marka aad eegto inta aynu dadka kan hay sidaad sheegtay oo lagu qiyaaso 2% haddana 25% inuu xanuunku inaga saameeyaa waa proportion aad u weyn ya oo aad u fara badan oo 12 jibaar iyo dheeraad noqonaya markaa horta xanuunkaasi saa u sheegtay jiraa statistics saa u sheegtay buu jiraa كل أنا وحنا أنا يا رنتا تحدث كأنه أحرم أو أن أدو ونكسنين إنه أنا وحنا يسكو بيرنا إنه هذا إن يسكو يعني أو إنه بوقشة يوم مارتي يسويماتين كي يسودوا الشيء يو إنه يبلاي عذيبة عن لينين أيها هرت أقوى عم بنسلا هاي مثل أشتو أي بدن كيسو أي ليه إن توكل على الله توكل على الله وصحوي إذا بين لنا هاي قفل بقورتي سودي من أيها وصح لكن تحدرك حتى أنت صالح يريد كسيو برك الدين تبغون نقضوا توكلك إياه وإحنا نقول شيء كيسان يسكو ما ويلنا وارهم
توكل على الله بلدي لكن إمك هداد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام دقيست والقرآن كيكتو وروح البضيكتو نبينا عليه الصلاة والسلام وإلى هاي هدو دونو يسقوا هالكا وشوغا والنصر قسين كري أي هدن لي رواية غدا أو صعطا أو دقال قشا أو أجيهادا marka توكل على الله فإذا عزمت توكل على الله وأنك قاد أو ضدك تشاور للصمية لكن توكل على الله marka suu ilaahay ku caawinaya haddaba midaynu ogaano oo waxa weeyaan waxyaalo waxaan isku qancinaa war maxayna helaya ilaahay baa haya goortii ilaahay quraan dhibanaya waa wada run waxaasi laakiin taxadirka adana ilaahay way noo sheegay khuduu hidrakum quraanka ku jirta meel badan ku jirta sidii ku jirta kullayba waxaan u aanaynayaa arrintaasi anagu taxadir yarida dadkana sidan maanta mar soo qortay maqaal ugu jawaabayna waxa weeyaan qof waliba Soomaalida imika hadaad eegto hadii arrin la soo qaado ama baron la soo qaado qof waliba qof buu eedeynaya hadaba waa keeka eedili horta qofku hadaan iska bilaabin oo anigu caafimaadkii jooga aan iska bilaabin because dadkan aan kamid ahay hadaan hataa saxsanahay waan khaldanahay because dadkan ay ilaahay gadiliyon kamid ahay haduu qof farta ku fiiqo dee lama gaarayo intii meel wada joogtaan oo soo saxsan tahay waxay leedahay waa isla yeelashan maxaa loo yeeli waay anigina ma yeelayo marka muhiimadda ugu wanaagsan waxa weeyaan in talada raacno inaynu taladu meel walba ay ku qoran tahay Soomaaliya hatta waa loo turjumay haddaynu soo koobno waxa weeyaan horta hygiene-ka oo ilaaliso waxa weeyaan distance-ka oo ilaaliso booqashada oo la yareeyo waxyaabaha aykaas oo very basic face mask oo la xidho adigoo aan u bixin waxaan dantaada ahayn oo aan necessary ahayn oo waxyaabii xataa necessary laftoodii soo yareeyay oo very essential-ka u baxaya ama soo qabsamaya horta talaabooyinka la rabo in loo hoggaansamo kuwa gaar ahaan dhalinyarada sidaad sheegtayba ayaa kulbrita iyaga weeyaan kuwa maaragtay ugu badan ee dibadda u baxaya dee waalidkii vulnerable u keenaya iyaga laga xaashiya waan kugu soo noqon doonaa halkan soo gaabiyo waa yahay halkaasaan kusoo gabagabeynayaa insha allahu khayr weeyaan iswaraysigeena hadda buu bilaabmayaa waynu kusoo noqon doonaa halkaasaan imika kaga baxaya waa mahadsantiin aad baad mahadsantahay xaashi arrimaha dhalinyarada waxaan doonayaa inaan mar dhow si fiican iyo gooni ugu qaadaa dhigno runtii taxadar waxaad tilmaantay taxadar la'aan iyo inagoon u hoggaansamaynin awaamiirtii la ina faray ee hay-adaha caafimaadka ka imanayay inaynu kala durugno inaynu ilaalino muxuu ahaa maaska xidhano oo aynu afxirka xidhano runtii bal waxaan doonayaa waa arrimo inagu soo noqdo runtii dadkeenu waa dad aad u wanaagsan maanta dariiqaasaan yara marnay aniga iyo nin la yidhaahdo dhagaxtuur dadka markaad xusuusto mid walba war anigan jeebka ku siiya waa kan qoorta iga laalaado way xidhanayaan war bal aynu dadaalno dadkan aad buu dadaalayaan bal cabdulaahi faarax maadaama aad xafiis joogto xafiiskaasina dadka ku yimaada badanaaba ay yihiin dad ay ku adag tahay inay adeegyada kale ama luqad ha ahaato ama si kale ahaato ee badanaa idinka culays intee leeg ayuu idin keenay bahalkan mideeda kale xaggii hoggaansanaanta see baad u maaraysaan imika uga qayb qaadataan wacyigelintii isla markaana dadkii u caawisan waa mahadsantahay cabdi runtii dhib weyn ayuu nagu hayaa maadaama aan furannahay oo aan dadkii Soomaaliyeed oo dhibaataysan qof Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo lacagtii laga gooyay oo caruurtii wuxuu siiyay la arag way noo ahaan weydeen guriga joogno guriga ka shaqeyno guriga ka soo wacna maadaama ay adag tahay qofkii inaad wixii uu wato warqadihii ku tuso wixii physical intuu yimaado aad u caawiso wixii uu watay aragto marka dhibka nahaya wax weeye dadkii Soomaaliyeed waa dhibaataysan yihiin meeshii kama xiran karno ilaa iyo 30 qofood ayaa wiigii iyo ka badan ba maaragtay inay noo yimaadaan laga yaabaa inay cudurku kulligeen shaqaalaheena dhan waan ugu wada dhacay isbitaal baa qaar u galay maaragtay ayaa qaar naga mid ah shaqaalaheena u galeen sababtoo ah waxa weeye dadkii waxaan isku dayaynaa dadkii Soomaaliyeed maadaama meel kale oo caawinaysa meelihii kale oo dhan waa la xiray aysan jirin way noo ahaan weyday inaan niraahno annaguna xirno meeshii oo aan guryaheena maaragtay ka shaqeyno iska joogno hase ahaatee dadka Soomaaliyeed saa sheegtay waa dad wanaagsan laakiin waxaad moodaa inaysan wax dhib weyn ba u arkin oo ahmiyad weyn ku arkin qofku waa ku imaanaya waxa leedahay afka maxaad xirtay waa wataay jeebku igu jiraa ama qoortu ugu jiraayo uu iska hoos buu dhiganayaa afka isagu ka siibaya qoortu suranaya markuu ku yimaado
qaar waxay ku leeyihiin ma waxaan ilaahay baa noo keenayay waxba ka baqanay waa qadarta ilaahay had qofku ku dhacayo qof ku dhacayna ilaahay baa keeni karee qaar baa waxay ku leeyihiin markaan waxaan haysanaa qalabkii xumadda lagu cabirayay kii gacmaha maaragtay la marinayay wixii oo dhan baan haysanaa marka waxay noqotay inaan qof walba tiraadid marka ugu horeysa aan kaa cabiro gacmaha marso baalkii afka xiro marka dadki qaar baa resistant waxay kula sameeyay ku leeyihiin war waxaan ilaahay baa qadaranayo maaragtay baalkan ma waaba soo ilaawayba maaragtay ayay ku leeyihiin marka waa runta dhib baa jira laakiin dhibkaa jira haddana waxaa weelay dhib badan oo dadka Soomaaliyeed haysta sababtoo ah hay-adihii dadka awal ay u tagi jireen kulli waxa laga dhigay maaragtay online ama dadkiina waxa laga yaabaa inuu soo luqadii aqoon oo uusan wixii online ku sabaysan karin marka waxay ku khasabtay inuu annaga maca guryihii naga soo waco dadkii guryaha adoo guriga joogo habeennimadii baa lagu soo wacayaa weekendigii baa lagu soo wacayaa hay-adihii baa waxay noo soo xawilayaan dad Soomaaliyeed oo meel ku isolated ah 4-3 qof oo waxaan hadda la shaqaynaynaa oo xataa qaar cunno u geynaa oo Soomaali oo qaar maskaxaan u xanuunsan qaar waayelo meel iska degan oo cid meel u bixi karin marka waxaan ku khasbannahay inaan baxno oo dadka u tagno hase yeeshee waxaa meeshan ka codsan lahaa dadka Soomaaliyeedna dhegeysanaya in ay taxadaraan oo aysan waxaan sahlan waxaan waxa weeye waad aragteen inta qof oo Soomaaliyeed oo walaalaheena oo ku geeriyooday baalkii waa wax jira marka yes waxa weeye dhibkaas waa jira cabdiyow laakiin annagu marna ma joojinayno dadka waa u shaqaynaynaa cunadii baan qaybinaynaa oo dad Soomaaliyeed oo maaragtay qaar badan oo waxaa jira aan income soo gelin qaar waxaa ka jira Europe yimid cayr loo ogolayn oo waxay cunaan aan haysan qaar waxaa jira benefit cap ku dhacay oo gurigii jaarkiisii iyo korontadiiba lacagtooda ay soo dhaafeen marka sidaas daraaddeed waxa weeye bilahan oo dhan cunaan qaybinaynay kombiyuutarro iyo baan kabani ka soo qaadnaayo aan qaybinaynay inkastoo dee dadkaan la wada gaarsiin karin laakiin intii siday u kala daran yihiin ayaan u kala hormarinaa intaas baan kusoo koobi lahaa cabdulaahi aad baad umahadsan tahay aan kugu soo noqon doonaa runtii arrimo muhiimaad sheegtay idinkoo u dhabar adeegay shaqaalihiina xanuunkii ku wada dhacayaad haddana xafiiskiinii uu furan yahay oo aad u shaqaynaysaan dadkii Soomaaliyeed haddana waxa soo noqonayood sheegaysaa inaanay dadkaani dhaga adeegayna waxba dhageysanayn xaashi laftigiisu wuxuu sheegay in mataqaanaa taxadar la'aan ay jirto labadiiduba aad isku raacdeen tawakkal cala Allah baynu leenahay waan dhaqaaqaynaa laakiin marka la yiraahdo inaynu haddaynu leenahay tawakkal cala Allah war maxaynu isaga tuuri weynay muxuu ahaa bridge aynu oran weynay tawakkal cala Allah laakiin imika ma qaadanayno marka sababta aynu isweydiinaynaa maxaa inaga qaldan runtii shaqo fiican baad wadaan waxaan doonayaa inaan Siciid Buraale soo geliyo Siciid sida aad maqlayso Cabdullaahi iyo Xaashiba waxa ay sheegeen in hawl badan la qabto haddana dadkeeni wacyigelintii aanay si fiican u gaarin waxa kale inuu ognahay in ururo dumarka iyo dhalinyaraduba ay shaqo fiican hayaan wadaan waxaana kamid ah talo waxaa kamid ah St. Jude's Women's Group waxaa kamid ah Barton Hill Activities Club sidoo kale waxaa kamid ah Somali Youth Voice waxaa kamid ah Bristol Horn Youth Consent oo labada hay'adooda dambe ay dhalinyarada la shaqeeyaan intaas oo dhan haddana inaguma duxayso waxba qaldanay maadaama aad Somali Forum ka tihiin sidee baa arrintan wax aynu uga wada qaban karnaa waa arrin oo taala maaha kaligiin sidee baa uga wada qaban oo aynu dadka u wada xiriirin lahayn dadkiina wacyigelintii ay si joogta ugu heli lahayn السلام عليكم عبد aad baad u mahadsan tahay sida fiicanaad barnaamijku dadaateynaysid runtii codkaaga yarada la siciido ma maqal socodka yar yarada la good hadda maqalkan wad haddana wad lagu maqlayaa okay marka waxa weeye arrimahan oo kale imika aad wadid oo kaleeto waa arrimaha dadka wax badan qaban kara oo ummadda isu keeni kara oo lagaga doodi karo muxuu ahaa see wax u qabsanaa runtii muxuu ahaa markaynu aragnay coronaviruskan waxaan isku daynay marka hore bal xagga media in la isticmaalo oo la gaarsiiyo muxuu ahaa bal qof walba wuxuu qaban kara dhinaca ka qabto rag badan wax qabtay sadda Somali Resource Center
Somali Youth Concern, Bristol Youth Voice, kulli waa waxyaalo badan baan shaqo qabanay si loo gaarsiiyo ummaddan muxuu ahaa wacyigelinta. Anigu waxaan ku dadaalnay dhinaca wacyigelinta bal in wax la gaarsiiyo. Runtii waxaan kaloo isticmaalnay inaan qoladan magaalada maamusho laftigooda aan u gudbino dhibaatada taagan oo ay ogaadaan si wax looga qabto. shirar badan baa la sameeyo oo muxuu ahaa Zoom ah. Marka cabdi waa runtii waxa loo baahan yahay in way qacmo wada jir wax ku qabtaan baa la yiri. Hal qof kaliya wax ma qaban karo haddaan la wada shaqayn oo aan loo arkin muxuu ahaa waxaan inay muhiim tahay ummaddan u tahay waxba hagaagi maayaan. Marka anigu mar walba muxuu ahaa fikirkayga iyo mabda'ayga waxa weeye sidii loo wada shaqayn lahaa, sidii arrinta meel looga wada istaagi lahaa. ugu muhiimsan waxa weeye hadda qolooyin masaajidada qaar baan la hadalnaa ku niri muxuu ahaa jimcayaasha dad badan baa imaanaya. Marka bal dadka waxa laga wacyigeliyo oo ha loo sheego, ha lagu yiraahdo war ogaado qofkii isagoo isku oga xanuun yimaada masaajidka in qofku qaadsiyo aakhiro la weydiin doono oo ay la mid tahay qofkaas hadduu berita dhinto isaguna mas'uul ka yahay because isaga cudurkii masaajidka u keenay isagoo wada. Marka masaajidada laftooda way dadaalayaan hadda hawlahaas waxbay kaga jiraan. waxaan aragnay maalintii noogu dambeysay waxa uu cajiibka ahayd dadku ay sii jeediyay waxay ahayd markii nimankii xabaalaha joogay ay yiraahdaan war maxay idinka siiya waa maxay waxani meesha dadkaan ugu aasanay muslimiinta ugu badan waa idinka maxaa idinka khaldan. Marka waxa weeye dadku way dhimanayaan, qof walba saacadiisa ma dhaafay, taa waynu ognahay. Laakiin waxaa loo baahan yahay mar walba mas'uuliyad in la saaro, in dadkeenu ay joogaan guryaha, in guriga socodkan waxba wana ku kordhinayn hadduu problem ku soo jiidayo. Waayo haddaad cudurka soo qaado reerkaaga iyo carruurtaadii iyo haddii kula joogaan waalidiinta aad soo gaarsiisid waxa weeye waa ayaan daro. Marka waxaan oran lahayn haddana ku dadaalnaa in la wada shaqeeyo, dhinac laga soo wada jeesto. Maanta waxaanu taaganahay meel xun, xanuunkana waxa weeye kii hore lama mid ah. Anigu way igu dhacay, waxaana qoladii ugu horreysay ku dhaco, dhakhtar baan u galay. kalaan kuwan inaan ka hadlayna waxa weeye ugu muhiimsan dadkeenu inay ogaadaan xanuunkan inuu samabada la dagaalamayo iyo oxygenka dadka. Sida kaliya ugu fiican ee lagu ogaan karna waxa weeye qofku inuu is ilaaliyo oo markuu ogaado oxygenka kula inkastaan filayo odayga inuu nolol joogo arrimaha u fasiri lahaa. waxay nagu yiraahdeen neerasiyadu siciido si fiican uma neefsana sida neef baad u baahan tahay, haddii kale to khatar baad gelaysaa. waayo sida la sheegay 98 waa inuu ahaadaa oxygenka ku jira jirkaaga. bahalkana markuu ku soo galana waxaad noqonaysaa tamar dara kugu dhacaysa, wax ma qabsan karaysa, oxygenkaaga baabiinaya laakiin ma dareemaysid inta hore. marka hadhow marka oxygenkaaga levelkiisu hoos si dhacana khatar bay noqonaysaa si kor loogu soo qaado. marka waxaan ku waanin lahaa oo mar labaad martaxad u sheegi lahaa dadkeena inay dhakhaatiirta la xiriiraan, in haddii xataa ay muhiim tahay oxygeno lagala tashado iyadoo la qaadanayo talada dhakhaatiirta in oxygeno dadku ay isticmaalaan oo guryaha xataa emergency ahaan loo haysto mararka qaarkood. dadka waa ka baxay bal qof baa soo galaamanaya. Assalaamu calaykum. aad baad u mahadsan tahay Siciid. waan kugu soo noqon doonaa. runtii arrimo muhiima ayaad sheegtay. waxa aan doonayaa inaan bal ku soo noqdo weliba aan ka bilaabo. waynu u soo noqon doonaa arrimahan Siciid uu yeelay xanuunka damqashada u bahalku leeyahay. waxaa laga yaabaa intaynan meesha ka wada hadlaysa xaasho un baan hubinay inuu nagu wada dhacay aynanu damqannay dareenana runtii. marka laakiin waxaan doonayaa Siciid wuxuu yidhi waa in mas'uuliyadda la saaro. runtii ololaha ugu dambeeya ee imika ay wasaaradda caafimaadku soo saartay waxa weeyaan dadkii waxaa lagu wacyigelinayaa war u dhaqma sidii uu idinku dhacay oo kale, siduu imika xanuunku idin hayo u dhaqma. oo waxa weeyaan taxadar laaba samee oo qof nugul baa tahay mar walba. haddaba mas'uuliyaddii imika haddii la eego dadka ugu badan sababta aan caawa aanan ugu yeedhin hablo badan baa shaqeeya runtii oo qaarkood hay-ado hogaamiyaan hawl fiican wata. sababta aan caawa ugu yeedhin waxa weeyaan in ragga inta ugu badan horta runtii uu xanuunku dhakhtarada u galay. dhakhtarada imika jiifa waa rag. dhimashada marka la eega rag iyo dumarka raggaa badan. war maxaa dhacay maxaa sabay farbaa inagu godan. xaashi cabdulaahi Siciid odayadii magaaladaynu ka mid nahay farbaa inagu badan. maxaa qaldan? waxa dariiqa taagan waa rag. haddii aad dariiqa marto inanta kaa soo horbaxda qofka dumar kaa soo horbaxa waxa weeyaan afka u xiran iyadu maaski xirantay. laakiin raggii ayaa dhibaato haystaa. haddaba maadaama aynu caawa inagii raggii nahay bal inagu aynu iska bilaabno maxaa qaldan? sidee baynu u sixi karnaana? qaladkii wuu dhacay, farriimo inagu gudan tahay, laakiin sidee baynu u sixi karnaa? arrintaas aynu wax u qaban karnaa. xaashi soo dhowow.
ood maxsanta cabdi waa sidaad sheegtay weeyaan horta sideedaba raggu iminka maadaama anagu caafimaadkan ku shaqaynaa meesha caafimaadkan joognaa marka aad eegto waxaan nahay ilaa 5 matalan dumara soomaalida iyo keligay oo weliba part time dhibaatooyinka ugu badan ee anigu xataa full time ilaa intaanu heli waayo waxa ka mid ah waxa la leeyahay raggii dee GP-ga ma yimaadaan dhakhtarkiiba ma yimaadaan looma u baahna oo ay tiraas yara khaldan tahay oo marka inta jibaaro eegto weli raggii dhimaanku badan yahay ama imka 20 sanadood baan ka shaqaynayay raggu waa badnaa laakiin waxa gashay propaganda ama fact inay raggu kulliba aanay dhakhtarka aad ula soo isticmaalin iyagoo soo dhaca mooyaane horta mushkilad baa ina haysata ama dhaqan ahaan ha noqoto ama dhagaadayga ha noqoto rag haddaynu nahay inaynu serviceska caafimaadku ka mid yahay marka horeba embrace garayno oo aynu kaalinteena ka qaataa way yarta oo practically aniga taa usoo arkay waxaan usoo joogay rag badan oo magaalada 10 sanadood 15 sanadood joogay oo aan xataa GP yeelanin oo qaarkood markii ay ku soo xidhantay ama shaqo ama meel looga baahday yiri warkaalayo noqon meesha oo imkaan GP iska jirgaraynayna horta raggu sidoodaba macaagaal iyo adduun iyo cadaan iyo cid walba markaad eegto they are born warriors ragga warriors bay ayay asal ahaan dagaalyahan warya nin baa tahay maxaad la walasa maxaad la weysa sabla maxaad nin ahaw nin iska dhig hataa dhaqan caynkaas oo dadka kale uu ka sii yar baxay oo ka fudaaday malaha inaga aan naga fudaan weli oo weli is adkayn ayaan isleeyahay sabab bay u tahay ilaa xanuunka nimka aynu soo gaarnay ilaa caafimaadka marka hore aanay ka qayb qaadan rag wayaan iska qorin TB-yada iyo waxaas oo dhan dhaqan caynkaas oo weli ragga is adkaynaba ku jira حتى واحد شدد رك بدنو dadkan waxa weeyaan halkan yimaadeen qaxooti bay noqdeen uphill struggle bay la kulmeen dad badan oo communication-kii iyo wixii inay la communicate gareeyaan GP-yadii wixii haddana weli aad moodo inay yara embarrassed yihiin oo ashamed ay ka yihiin in la caawiyo meeshii oo ay yimaadaan ayaa jira oo annagu aan la kulannay oo fact jira haddaba ujeedada ugu weyn waxa weeyaan ama ha noqoto dhaqanka weerarka war nin baa tahay adkay war waxaan wax la isku adkayn karayo maaha maanta taagani haddii intii hore maaragtay aad ka soo gudubteen oo xanuunadii caadiga ahaa iyo waxyaabihii sahala ahaa aynu ka soo gudubnay arrintu sidii magacaaban leeyahay waxay u baahan tahay waa arrin adag weeye waxaynu u baahan nahay waar inaynu adiga uun naftaada ma hays adkeeyo qura maanta ma joogte caruurtaadii iyo xaaskaagii iyo dadkii kale bani'aadanka ahaaba gaaliya muslimadda xil baa kaa saaran inaan adigu gudbin aanad kala soo qaadin haddaad ka soo qaadana waad gudbinaysaa marka inaad taxadirkaa badan qaadato oo maaragtay si laysu ilaalin ta kale jirtaa waxa weeye qof walba oo ka soo qaad baa laydin ku hayo waa run weeyaan taas ninka cabdi wuxuu sheegaya war wuuna soo wada maray buu yidhi aniga igan xaashi ay muu soo marin laakiin soo marayaan mooyaan oo aad isbaan soo taskarayn oo doo aan ogii caafimaadka joogo waxa weeyaan isma ogo qofku anigaaba ka mid ah dadka gaadhiyey runtii weli soo haystaynu ma horeedhahay laakiin waxaan ku wanaagsanahay imika arrin kale iyo mawduuc kale aynu geli doonno ama xilligan imika ama marka ka dambaysa oo tallaalkii iyo sidii hawsha loo gelayay ka jirta oo annagu inaan hormuud ka noqono la doonayo dadkana lagu gubaabiyo oo ay soo galaan ayaa iyaduna meesha jirta haddaba waxaan ku soo gabagabaynayaa oon leeyahay xataa dad badan oo aan is ogeyn baa jira oo hayo wareedha hataa haddii ku hayo bal kiibid halka aad joogto ama weli aanu ku qaban sida halka ugu kiibgelin lahayd cid kalena aad gudbiseen adiguna aan soo qaadan yeelo aad taxadirkaas oo aad raacdo taxadirka oo aad raacdaa wax badan ayuu tarayaa is adkaynta iyo waxaas oo dhan oo laga soo gudbo waxaan wax la isku adkayn kara ma aha waynu arkaynaa heerka aynu ka joogno Soomaali ahaana waynu arkaynaa marka cid walba in ogaatay cid walba in sheegay statistics in sheegay ee qoladii xabaaluhu in sheegtay cid walba in sheegtay waa inaan believe galinaa halgoon halkee wax dhiga khaldayin waay inagu qadarka dadka waynu la simanayo waa oray laakiin victimska maxaynu u noqonay intaasoo laba jibaar inagoo intaa ka adag aad baad maasantahay xaashi aad imika ka dhigayso ama aad igu soo celinayso midiyar oo kale aan ka oran lahaa xagga talaalka iyo waan gartay ku daraamso waa aan ku soo noqdo talaalka waayo waa arrin muhiim ah aynu u baahan nahay inaynu ka hadalno iyada laftigeeda xaashi aad baad umahadsan tahay raggii inagoo kala mida ragga kale la mida oo raggu sidaa aad sheegtaba is adkee ilaa aynu soo dhacnana aynaan tegin
sida aad tilmaantay rag dhowr iyo 10 sanadood magaalada joogay ay bilaa caafimaad bahayn oo aanay xitaa GB dhakhtar bakar jiskaraysnayn yani iska diiwaan gelin runtii waa arrin sheegaysa sababta ay raggu ugu badan yihiin waayo waxa laga yaabaa inaan lahaynin muxuu ahaa taariikhdii caafimaadkiisa medical historygiisiiba inaan lahayn aan la aqoonba waxa qofkan haya ama waxyaalaha laga yaabo inuu vitamin D yaraan hayso laga yaabo inay aanu iron aanu birtiiba lahayn ay ku yar tahay baan u jeedaa marka waa arrimo u baahan haddaba waxaan soo noqonayaa Cabdilaahi si xaashi waxa uu sheegay in isaga kaliya uu yahay qofka ragga ka shaqeeya waayo waxa badanaaba 90% adeegyada caafimaadka isticmaalaa waa dumarka waxa laga yaabaa saas oo kale idinkan inay dumarku idin yimaadaan laakiin wacyigelin intee lag baynu fariimaha ay ka qayb qaadan karaan dumarku waayo lama waa la wada joogaa waa la wada shaqeeyaa waa la wada deganyaa isku wayna saaragnaa walaal iyo adeer baa leeyahay waxaas iyo odageedii baa waa very muhiim sidee baad ma isku daydeen inaad dumarka wacyigelinta u fartaan oo ay ragga bal dhiirigeliyaan inay ka qayb qaataan xakamaynta COVID-ka waa mahadsantahay cabdi waan dhiirigelinaa inkastoo dee aanan kala saarin familiga oran odagaaga la hadal iyo aanan oran laakiin dee waan dhiirigelinaa dadka waxaan ku nidhaahnaa baalkii meel xun buu marayaa dad badan baa u dhintay waa inaa is ilaalisaan oo familiga iyo carruurta iyo adinkuba inaa is ilaalisaan oo raacdaan guidelineska dowladda kaas oo aan u sharaxno waxa ay u baahan yihiin sida ay isku ilaalin karaan markaas guud ahaan ayaan ugu sharaxnaa inay is ilaaliyaan in uu khatar yahay qof kasta ku dhici karo yar iyo weynba si guud ahaan ayaan ugu sharaxnaa laakiin maadaama ma nidhaahno maaragtay ragga ayaa u daran ragga ilaaliya ma nidhaahno gooni laakiin guud ahaan baan familiga ugu wacyigelin ugu samaynaa aad baad umahadsan tahay Cabdilaahi waa muhiim in arrintaa runtii wax laga qabto waxna aynu iska eegno haddaba xiriirintii bulshada Siciid Maxamed Bulaale xiriirintii bulshada sidee baynu bulshadan xaashina uu inoo sheegay in mataqaanaa raggii aanay adeegyada caafimaadka isticmaalin Cabdilaahi sidoo kale wuxuu qiray in dadka u yimaada badankooda iyaguna ay dumar yihiin ayna ku dadaalaan oo sheegaan dadkeenu saan sheegay maanta galabta markaan maray waxaanu arkaynay rag bay ahaayeen la hadalnay aniga iyo nin la yidhaahdo dhagaxtuur ilaahay hadaaye way ku soo joogsanayaan war waa kanoo bahalkii bay isla markaa afka ku xidhanayaan bal is ilaaliya laakiin imika waxa weeyaan sidaa xaashi uu sheegay wuxuu yidhi anigu xitaa inaan qaadan moogi laakiin xaashi oo saddexdeen kale nagu dhacay bahalkuu ku damqayaa anigu dhakhtar umaan gelin Siciid dhakhtar buu galay Cabdilaahi u malayn maa inuu dhakhtar galay laakiin wuu ku damqayaa daal buu kaaga tegayaa haddaanad is ilaalin waxa keliya lagu xakamayn karaana waa in la is ilaaliyo maadaama aynu ognahay in mataqaanaa dawadiiba imika soo bilaabmayso war sidee baynu u dhiirigelinaa in ay raggu aanay is ilaalin oo keliya laakiin ay xakamayntii ka qayb qaataan taasina waxay iigu daraysaa oo aan doonay inaan ku xidhiyo arrimihii dhallinyarada ee uu xaashi mar dhoweyd carabaabay maadaama imika waxaad moodaa rag badan iyo inaan rag oo dhan wada eedaynin rag badan oo runtii dadaala isxakameeya haddana laga yaabo inaan ciyaalkii dhallinyaradii inamadii yaryaraayee 15 jirka 18 jirka ee suuqa u soo baxayay laga yaabo inay meelaha kubad ku ciyaarayaan inay meelaha wada taagan yihiin runtii marka laga hadlo oo weliba qaarkood inay xitaa laga yaabo inay inta guryo ama wada tagaan ay game wada ciyaarayaan hadhow guriga markuu yimaado waxaa laga yaaba inuu isagu gurigii u keenay reerkii uu xanuunkaba isagu dib ugu soo celiyo war arrintaa sidee baynu ay raggii uga qayb qaadan karaan dhallinyaradeenniina loo gaarsiin karaa Siciid cabdi waa arrintaas waa arrin aad muhiim u ah si looga qayb qaadan lahaa waxaan filayaa dhowr jeer aanu meelaha marnay meelo badan oo arrinta aan wacyigelin wadnay dadku inay diyaar ahaayeen ay u baahan yihiin dadka in la engage garayo dib loo soo kiciyo in muxuu ahaa la fahansiiyo xaaladdu meeshay marayso dadka qaar baa weli aan u aaminsanayn in arrintu ayba tahayba serious waxay u arkaan wax iska in qofka hebelta saacaddiisaa dhammaato laakiin waxaa loo baahan yahay mararka qaar in la khaldan in la qabto marka dadkeenna haddii aan muxuu ahaa la wada shaqeeyo inta activeka ay wada shaqeeyaan oo isku si wax loo arko oo wax la wada qabto
wax badan baa la gaari karaa dadkeenuna dad qalabsan ma waasaas sheegtay maanta markaad maraysay waa adigii sheegay dhowr jeer hore asaas kale aanu sameynay aan waxtaa u qaybinay bahalada afka lagu xiranayay aad iyo aad bay noo soo dhaweynayeen marka adoo qabanay waxan inkastoo bariyii hore marka qof la yiraahdo wax qabanay la arko la oran jiray maalinka lacag lagu qaadan laakiin waa waxyaalo badan oo isbedel way jira marka waxa weeye dadkeena in la fahansiiyo oo si serious inta loola hadlo runta loo sheego la yiraahdo war waxani maaha wax ciyaara waxani maaha wax fudud waxani maaha muxuu ahaa wax sidii hore waxaan arki jirnay maaha wax mucjisa adduunka oo dhan buu kala xidhay marka innakana waad aragtaan dhibaatada nagu haya reer Bersalaadaan nahay haddii aan la wada shaqayn oo arrinta dhinaca looga soo wada jeesan qof kaliya far kaliya fool ma dhaqla Soomaalidu tiraahdaa marka waxa weeye cabdi waa runta arrintaas waxay u baahan tahay muxuu ahaa dadkeena weli khaasatan horta qolooyinkan active-ka ah isu yimaadaan in la isqeybiyo dadka si loo wacyigelin lahaa loo wacyigeliyo la wado hawsha la dareensiiyo dhibaatada meesha taagan tahay qolooyinkan xaashi iyo caafimaadkuna ay nagala qayb qaataan oo la sii wada yimaado si xitaa xagga maaragtay muxuu ahaa waxay imaanayaan GP-gii in GP-ga laftigiisa hawsha wax ka qayb qaataan oo ay dadka maaragtay ama video ha noqdo la duubayo ama qoraal ha noqdaan caafimaad ahaan inay nagala qayb qaataan waa soo dhaweyn lahayn waa wax fiican dowladdana la dareensiiyo dhibaatadan innaka horta anigu dowladda waxa iga muhiimsan bay inaku waxaan innaka dadkeena dhimanaya inaku inaanu siino priority inaanu siino muxuu ahaa attention badan aan laga fariisan marka waxa weeye waa runta arrintan waxay u baahan tahay in arrin aan ciyaar weli dumarka laftigooda qaybtooda qaataan ay carruur weyn wada leenahay oo lama celin karo waxaan ku dhahnaa war xagee tegaysaa war ma waxaad doonaysaa waadigii ogaa marba aniga aan wada galnay cusbitaalka muxuu ahaa xaasku aanu galnay waan weydiye bal ka warrama dee way yaabanaayeen marka waxa weeye waxani waa balaayo ilaahay mar buu ina dhaafiyey haddana waxa weeye waa meel xun baan ku jirnaa imika weli marka horaaba la qaatayba marka waxa weeye waxaan ku codsan lahaa inaan laga dhigan wax caadi ah waxani maaha caadi waa mucjiso waa wax la yaab leh waxa aanu saacadda uga hadlayna arrintaas waxa weeye waxa nagu kalifay dhibaatada dadkeenaan aragnay dadkeenuna iska dhintaan ma rabno wixii dhimanaya saacadda ilaahay wayna ognahay ma didanin laakiin xaqiiqada waxa weeye waxbaa khaldan waxaan khaldanna waxaan ku sixi karnaa muxuu ahaa inaan isla garanno oo meel uga soo wada jeesano oo isku si u aragno marka waxaan idinku codsan lahaa kulligeen arrintaasna nagala qayb qaataan qof weyn iyo qof yar iyo dhalinyaro iyo dumar dadka dhegaysta programkan aan duubayno isku daya inaan meel uga soo wada jeesano bahalkaas waxaan ku diri karnaana waxa weeye inaan yareen socodka salabar waxaan ku diri karnaa qofka isku dareemo waxoogaa inuu ka fogaado dadka kale oona u imaanin waxaa jira tallaallo meel baaritaan qofkii dhibaat ay u baahan waan ka saacidi karnaa sidii baaritaanka looyo xitaa even hadda waxaa la bilaabay test yar oo qofka dadka la siiyo qofku ogaan karaba markiiba isagoo gurigiisa jooga meeshuu gaarsiisan yahay marka please arrintan waxa weeye waa waxa saacaddan u hadlana waa serious odayaasha soo keenay assalaamu calaykum cabdi halka kasoo aad baad umahadsan tahay siciid arrimo muhiima taabatay in mataqaanaa socodka la yareeyo sida waxyaalaha aynu ku xakamayn karnaa waa ka hortaga in socodka la yareeyo la kala durko mar walba gacmihii la maydho runtii waa arrin aad innaga oo dad muslimiina tukannaa mar walba weysaysanaa nadaafadiina laynoo sheegayba inay diinta yani barkay tahay baa nadaafatu nisfu min al-iimaan ee uu faydkii qaybkii barkay tahay haddana maanta dadka ugu badan ee dhimanaya ay yihiin Soomaali aad baad u mahadsantihiin oo kale sidoo kale qolooyinka comment-ka samaynayaan dhiirigelintiina waanu qaadanaynaa su'aal muhiima oo aan islahaa marka dambe ayaaba halkan ka soo baxday Cawaalo Birinbar aad baad u mahadsan tahay weliba su'aashan Xaashi baan toos u weydiinayaa Xaashi nin Cawaalo Birinbar la yiraahdo wuxuu yidhi Soomaalidu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلال كصوبحي شكل بدن بيك طبعا مركا محات كل تلين الهيدين حديدة كديدنا سيدا بعد تلا لوسينا ما دام مركي دوت سكتة waxa ugu badan ay aynu ognahay marka aynu isla garanay inay xanuunka waxaa uu ragga yahay waxa isbitaalada jiifa ay ragga yahay dhimashadii raggu badan yihiin haddana raggiina aanay saadkii sheegtay dhakhtarkiiba adeegyada caafimaadka isticmaalaynin imikana waxaynu aad ugu dheeraynaa runta waynu isnaqaanaay waxa la yidhaahdo conspiracy theory-ga oo durtaba shaki laga qabo tallaalkii xaashiyow war ninka aan
gb ba tegin oo laga yaabo 10 sano aanu tegin dhakhaatiirtiina aynu ka buuxino tallaalkiina shaki ka qaba sidee baynu ugu dhiiri gelinaa oo wax looga qaban karaa xaash soo dhawow okay tagi waad mahadsan tahay ninka odayga ah ee su-aasha keenina waad mahadsan tahay dhe wuxuu ahaa kolliba mawduuc aan doonaya inuu soo galo kolley waqtigu marka hore waxaa la is yidhahdaa malaa saacaddii wax badan ba haysataan laakiin kolley waqtigu iska soo yaraadaa wuu iska soo ururaa hadalku iska bataa waxaan isku dayay in soo koobo kow waxay ahayd horta kolley mawduuc ay ahayd inaan soo gala anigu waxa weeyaan misinformationka iyo informationka misinformationka dheereeya weliba soomaali haddayna dhaqan waxaynu leenahay dhinaca xun baynu hore u qaadan ognahay iyadoo informationkii kale aynu ka tegayno aniga laftaydu waxa weeyaan tallaalkani markuu soo baxay qudhaydu skeptic baan ka ahaa waayo social mediaha la soo geliyey dad badan ba ama dhakhaatiir isu sheegaya ama dhakhaatiir ba yidhi waxaan aad looma baahna laakiin waxay noqotay markii ugu dambeysay aniga laftayda kumaan degdegin anagu waxaan qolada priority-ga leh qolada caafimaadka u shaqaysaa dadka priority-ga leh marka ugu horeysa loo ogol yahay in istilaalaan above ADs-ka ku xiga ayaanu ahaynay markiiba naloo fargareeyey aniga laftayda kumaan degdegin dadkaygaan la mid ahay oo waxaan is waa bal horta waabay dad waxaan la sheegayo wax ka jiraane ka ugu horeeyaa noqonin laakiin imika waxaan soo qanciyay horta anigu kow imika sabta soo socota ayaan tallaalkii leeyahay insha allah ilaahay khayr ka dhigo waxaan ku dhaligelinayaa dadka waar bal adigoo arkaya oo hebel oo shalay shaqo tegay baa dhimanaya tan dadkiiba wada qaadanayaan ee conspiracy theory-gan oranaya ma dadka madow baa laynaya dadka waaweyn baa laynaya soomaalidu waxaasay aad u qaadan ogtahay waar adigoo halkii iska joogo baaba ninkii shaqaa tagaysay uu maanta dhimanaya oo hebel iyo hebel aynu u garanin oo shalay daraad dhintay marka riskigaa intaad qaadan lahayd waxa fiican horta talaalkan in la qaato weliba haddaad eligible u tahay waayo dad badan oo doonayaan eligible ba ahayn oo dadkii waabay kala laayihiin inagana weli waxay naga buuxdo waa misinformation iyo baalku wuxuuyeeyo waa la saynaya iyo wax noocaasa anigu waxaan imika u qaatay horta role model maadaamaan caafimaadkii ka mid ahay inaan dadkii tuso waayo waxna waynu doonaynaa inaynu xakamayno waxna ka hortagno waxna daweyno marka horta haddaan anigu qaadan oo aanan practice garayn waxaan preach garaynaya ama maaragtay aan dadka ku xadiisayo dee aniga qudhaydii waxba lagama qaadanayo kow waxa weeyaan haddaba horta talaalkani waa sidaa waariyadoo la iska joogaa la dhimanaya oo baalkii la qaadayo aynu arkaynaa wax waliba khasaare iyo faa'iido wuu leeyahay laakiin imbalance marka aad eegto ee su dhinac dhigto dee khatartan jirta dee in istilaashaa ka wanaagsan kow waa runtaa way adag tahay oo sida loogu qanciyo qofkii afka xidhan loogu taag waayey ama distance samee ama guriga joog loogu taag waayey haddana wax kaloo misinformation la socdo oo la leeyahay waxbaa lagu noqonayaa si loogu qancin lahaa waa step kaloo adag laakiin waa step imika aynu u baahanay qudheeda inaynu dadaal siino oo dhiirigelin badan aynu siino oo imika dad baa jira dadka above ADs-ka waa loo soo wada diraya problemka jira horta wuxuu yahay dad baan garanayn bo maalintii qolaan la soo hadashay oo message baan helacayn karo maba garanayaan oo la leeyahay appointmentkaagii bay gaadhay ballantii soo samayso oo horta barrierska communication barrierska iyo waxaasoo dhan baa jira oo dadkii waaweynaa imika xataa lagaga bilaabi lahaa soomaalida ka mid ah dadkiina imika ma wada joogaan oo markaan dhakhtarka imika shaqayn jiray physical aanu meesha u joognay maalin walba warqada soo dhacday iyo message ku soo dhacday way noola iman jireen laakiin imika dadkii xaggaasi ku maqan yihiin waxaan uga jeedaa waxa weeyaan tallaalkan iska qudhiisu waa ololo kale oo markaynu isku qancino tan kalena ay noogu xigto waana waxaynu u baahannahay waxaana doonayaa misinformationka in meesha laga saaro oo haddii aad leedahay tawakkal cala allaahi oo goortan doonan dhimanaya oo caynkaasa maxaa tallaalka qudhiisa tawakkalka u diiday ayaan leeyahay meesha tallaalka qudhiisa aad uga baqaysa ayaad u leedahay waa la istilayaa soo adigan markii kaleba le maaragtay waxba taxadir badan samaynaya maayo waa tawakkal cala allaahi oo saacaddeedaan dhimanaya labadaas isma qabanayaan baan leeyahay waxaynu u baahannahay marka aynanu diyaar garowno ama taa xakamaynta ha noqoto ama taa isilaalinta ha noqoto ama taa qoyskeena iyo carruurteena ha noqoto ama taa istilaalidda lafteeda ha noqoto imika ololo cusub bilaabmayo anagu aanu ka qayb qaadano nugu horeyno noqonaya dadkan aan doonayno inaanu gaarsiino kow haddaan dib ugu soo noqdo tii hore ee dhalinyarada iyo xibin ka hadlaynayay dadka dibadda keenaya dhalinyarada baalkan waa dhowr nooco waa iska dhowr madmidiyo ama dadka erer waxba ma yeelayo aniga hablahayga qaar buu ku dhacayo waxba may noqonin oo carruurteena doyna xataa uma eegayn laakiin waad ka baxaa layidhi markiiba waxaan uga jeedaa dhalinyaradana isma oga waa kuwa iyagu keenaya qofkii vulnerable ha gaarsiinaya isagina symptoms kama muuqanayaan dadkan dibadda ka imanaya waa kuwa keenaya dhalinyarada keligeed yaan eedayn ama rag waaweyn ama cidi doona ha noqoto
waxaanad ogaataa inuu waxaanu ku jiro oo guriga ka dhow yahay oo meel walba ka dhow yahay oo qofka ka dhow yahay oo suuqa ka dhow yahay marka intii taxadir samayn karta inaad samayso tallaalkii inaynu diyaargarowno oo weliba waaba la kala laayahay oo above aids iyo dadka frontline serviceka iyo care homes ka shaqeeya waxaasa ugu badan laakiin inaynu sii diyaargarowno bal kuyowgeenna iyo sidaynu isugu qancin lahayn bal tawakal cala allaada lafteedii dayna tawakalo oo iyada qudhe tawakal oo baalka waa la isku dilayaa waa la isbarnayaa haddaad tawakalkii samayso see la isu dilayaa la isu barnayaa tawakal cala allaada ma dhinacun bay ka shaqaysaayo marka aanad taxadirayn bay shaqaysaa marka aad dawada qaadanayso miyaanay shaqaynayn okay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu calaykum asalaam xaashi aad baad u mahadsan tahay waa run tawakal cala allaahdu waa inay wanaagga u shaqaysaa wanaagguna waa inuu wanaag dhalaa runta marka laga hadlayo wayna adag tahay sida aad sheegtay dhinaca taban waxa aynu idhahnaa wegeerta soomaalidu mar walba dhinaca kale baynu eegnaa waxa laga yaabaa inagoo wax falanqaynayna inaynaan si fiican waxba isku weydiin laakiin aynaan xitaa isku cabirin oo aynaan isku dheeli tirin khasaaraha iyo faa'iidada markaa laakiin go'aan degdegaynu gaadhnaa cabdullaahi faarax xaashi si fiican buu inoogu sharaxay tallaalkii inuu soo socdo weliba dadkii ay dee kala priority mudnaanshaha kale leeyihiin dad waaweyn oo fara badan baynu leenahay oo mudnaanshaha leh haddiiba marka horeba dadkan ag taagan ee inagu aynu ka mid nahay aynu dhinacii tabnaa wax ka eegayno inu leenahay waa la isdilayaa waa la ismarinayaa laakiin tawakal cala allaahidii aynaan xaggii wanaagsan u eegaynin sidee baynu dadkeennaa waaweyn bal wax loo gaarsiin karaa sidee baa arrintaa wax looga qaban karaa bay kula tahay cabdillaahi waxaan u malaynayaa cabdiyow waa run sida xaashi sheegay waxaa jira shaki badan dadka soomaalidu ay qabaan laakiin shakigaasi ma ahan mid ku salaysan xaqiiq ku salaysan ma ahan sababtoo ah anaga wiig walba dhakhaatiir oo waaweyn oo ku shaqo leh tallaalka iyo qoladan caafimaadka dowladda hoose ayaan meeting marmar la galnaa oo su'aalahaas waa la isweydiiyaa oo way og yihiin dadkeenu inay shaki ka qabaan tallaalka oo dee conspiracy theorygaasi ay dhex yaacayso marka xaqiiqdii waxa weeye waxaad suuqa lagan wax ka jira ma leh dhakhaatiir dad badan xataa dad badan oo waxaan weydiinay war waxa kan maxay ingredientigoodu maxay yihiin laga sameeyey manoo sheegi kartaan haabaa la yidhi way ku qoran tahay waxaa naloo sheegay maaragtay literaturkii lagu sharaxayaa nala siiyey waxay ka kooban tahay ina xataa aysan wax doofaar iyo isugu jirin baa naloo sheegay oo aysan waxaas isugu jirin marka waxa muhiima dadkeena in loo sheego lagu qanciyo lagu dhiirigeliyo inay qaataan malaayiin qof baa hore loo soo marsiiyey maahan annagu weli maaragtay dad badan ayaa lagu soo talaalan waxba ku noqon maahan wax la qarinayo cid la qarin karo dad badan baa ku jiro dhakhaatiir soomaaliyeed baa maalin dhaarka hadlaysa oo war ha la qaato oo waxaan maaragtay ayagu dadka siiya dadka ku dura oo og wixii waxay yihiin marka muhiimku waxa weeye inaan dadkeena ka dhaadhicino inay qaataan tallaalka waa muhiim inay qaataan hadday rabaan dee inay iyagana isbadbaadiyaan dadka ay jecel yihiin ay badbaadiyaan waa inaan ku dhiirigelinaa qof walbaaba qofkii waayeela oo hadda maaragtay lagu casuumay inuu qaato hadduu og yahay inuu ku dhiirigeliyo oo lala hadlo la yirahdo waa muhiim qaado ilaahay tawakal qaado waa ku anfacaysaa I think waa mas-uuliyaddaas inaan is saarno annagu haddaan nahay qolooyinka informationku soo gaaraan oo ama communityga la shaqeeya aad baad umahadsan tahay cabdillaahi siciid maxaad kale ku kordhin lahaydeen arrintaa ay xaashi iyo cabdillaahiba faahfaahiyeen siciid buraale ma maqlaysaa waan ka soconayaa hadduu soo galo inagu soo noqoni siciid aad baad umahadsan tahay runtii xaashi iyo cabdillaahi aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa xoogaa baynu hadlaynay hadalkuna inta kooban buu ku macaan yahay waxaan doonayaa arrin aad u muhiima inaynu ka hadalno qodob aad u muhiim inaynu kusoo gabagabayno runtii dhallinyaradii aynu mar dhaweyna carabka ku dhufannay waa dhallinyaradii sidee baa dhallinyaradii wacyigelin loo gaarsiin karaa xaafadihii ay mataqaanaa
ay u fahmi lahaayeen waayo dhalinyaradii ayaa aad looga cabanaya oo dibaddii ka keenaysa waxaa laga yaabaa inuu maanta oo dhan dibadda taagan yahay bahalkani hawadu ku jiraa waxaa laga yaabaa inuu 5 daqiiqo hawada haysto waxaa laga yaabaa inuu qof bahalkii qabaa maanta oo dhan la joogay uu ka hindhiso isagii qaatay isagoon sugayn gurigii buu soo galay waxaa laga yaabaa isagoo gaajaysano carray inuu toos intuu madbaxa u galo hooyadii ay cunto u gurto oo xitaa uu foogyagii soo qaato dee midi uu ku cuno hadhowna ay hooyadii dib u maydha alaabtii taabato marka bahalkii uu faafo marka waxa weye markii gurigii idankii yaraa ku noqdo hooyadii iyo aabbihii iyo walaaladiiba kama badbaadayaan marka dhallinyaradeenii sidee baa loo gaarsiin lahaa in naftoodii ay khatar ku yihiin ay khatar gelinayaan talabaad inay waalidkood khatar gelinayaan iyo bulshadiiba weliba haddaynu dhinaca aynu hadalka aynu leenahay khatar baad gelinaysaan bal aynu ka dhigno mid togan oo aynu nidhaahno waajib sidee baynu u fahansiinaa inuu waajib ka saaran yahay badbaadada naftooda badbaadinta baan ujeeda naftooda badbaadinta qoyskooda aabahood waalidkood walaaladood iyo badbaadinta bulshada inuu waajib ka saaran yahay oo ay ilaaliyaan naftooda iyo nafta waalidkood si ay ummaddiin u badbaadiyaan arrintaasay baan uga qaban karnaa xalay waxaa halkan laga soo jeediyey maraan xogeer ka hadlay in la helo Somali Marshals Somali lugaysa dariiqa oo dhalinyarada la hadashay saan maanta baan aniga dhagax tuursanay marka bal arrintii dhalinyarada war sidee baynu dhalinyaradeenni waana arrin aan u baahan doono ragoo kaliya aan qaban karin dumaroo kaliya aan arrin u baahan in la iska kaashado oo cudurba marka xaashi arrintaa dhalinyarada sidee baynu dhalinyaradii arrintaa uga dhaadhicinay waad mahadsantahay cabdi hadalka aad u qadmayna waad ogtahay waqtiguna weyn ugu soo dhow yahay laakiin waa qodob muhiim ah qodobka muhiimkii waxa weeyaan waxaan kuu sheegayaa anigu xalay toole anigoo meel socdo ka dhigay oo baabuur wata ayaa meel bileys xidhay aan soo galay meesha bileysku xidhay waxaa meel jangalo oo kayna oo la yidhi waxa lagu qabanayaa baarti baa lagu samaysanayaa oo booliiska laga baxsanayaa oo inner cityga ayaa laga baxsanayaa waxaan la kulmay intaas oo Soomaaliya oo yaryar oo wada da'yar oo mid walba la ganaaxayo oo laga qorayo wixii waxa igu soo dhacday markiiba dadkani miyaanay ahayn halkan isugu yimid xafladahan tegaya kuwa hadhow guryahoodii tegaya odayaashii islaamiyay falnarabulka ay nuglaa markiiba waxaan qaadayay u tegaya halka ay sabta ku qormayso waan arkay waayo dadkii aan arkayay xafladda u badnaaba Soomaali baa u badnayd mabaan arkayn baa yaryaraay meesha joogay halkaasaan horta ka gartay markiiba khatarta ay yararku ay keeni karaan booliis baa meesha ku qabtay soo ogaaday meesha wax ku qabsanaya waa la ganaaxayay gidigoodba oo detailskii wixii qornayay waxa igu soo dhacday markaa wallahi meelaha ay sabtu ka qormayso waxaa ka mid ah meelahan lagu dhuumanayo ee inta xataa meeshii la garanayay laga tago kaymaha la isla gelayay intaas oo qof oo badan bay ahaayeen hoosta iskaga wada jira oo meesha tagayo meel lagu wariyo la qabanayay horta waxaan ka wadaa arrinta dhalinyaradu aad bay muhiim u tahay walow waalidka iyo qof walow weyn iyo annagan iyo cid walba uu saaran yahay waajibku oo role model loo doonayo inay u noqdaan maca dhalinyarada laftooda haddana xaggii dhalinyarada waa arrin very sensitive ah waa arrin very fragile ah oo maaragtay u baahan wax laga qabto waxaan oran lahaa anigu aan talo kusoo siin lahaa waxaa jira sidaad sheegayseen dhowr ama 2 ama 3 ma garanayo youthka qaabilsan oo organisationka ka mid ah oo aan filayo inay marka dambe inoo yimaadaan laakiin magacyada ma doonayna waxaynu u baahannahay si practical aynu u qabanno kow anigu horta waxaan u lahaa generationsku way u kala dhugan yihiin dhalinyaradu generation way u kala dhugan nugul yihiin aniga way dhugan nugulaan karaan laakiin halkaasay ku dhaafayaan ixtiraam bay siinayaan odaynimo dhalinyaraduna horta waa relativity oo aniga mar baan meel dhalinyaro ka noqon karaa cabdow iminka adiga dhalinyaro ay ablaayar adu raggaasi waxaan ka wadaa generationska say isku kala dhow yihiin bay horta ay guntooda isu ogaan karaan aniga wax ixtiraami karaan yes bay oran karaan okay bay u qancin karaan laakiin horta waxaa la doonayaa cidda fartooda la fahmaysa afkooda iyo language ay yaqaanaan la fahmaysa maaragtay ay aad u wada xidhi karaan inay ubuucda noqoto haddaba inta ka soo weynaatay iyaga ee generationska kusoo xiga ah hadda mas-uulka soo noqotay ama ha noqoto kuwa formada inoo jooga dhalinyarada ama kuwa kale ha noqoto dad caynkaas aynu ka shaqaysiino oo bislaaday iyagu dhalinyaradiina weli ah communicationkiina inooga dhow dhalinyaradii waayo inagu waynu waanin karnaa dhaqanka soomaaliduna waa yahay adeer buu nin walba ku oranayaa uu kaa qadeen waa imika xidho waan xidhnaya waa yahay
laakiin practically halkay sabtu ka qurmayso iyo halkii laga daweyn lahaa waxay u furfurmi karaan generationka ku dhow laakiin iyaga kasoo yar kasoo hor majuur garoobay innaguna aynu la xidhiidhi karno in jaranjaro caynkaasa inta la sameeyo balsi dhalinyarada maaragtay loo gaadhi lahaa guntooda ma aha un sheegun oo waayahay bu aniga oranaya adigana waa iigu koranaya adigu laakiin inaynu gunta u dhacdhacno oo cidda ugu dhowno aynu eegno ururadaasina bal hadda siday aynu hawshaa uga shaqaysin lahayn aynu eegno kolleyba waxaan ku talinayaa inaynu forumkeena intan ka ballaadhino oo kuwa haweenka ah kuwa dhalinyarada ah kuwa yani kuwa informationka inta inaynu ku joogna ah inay multi organizational multi maaragtay disciplinary aan isugu nimaadno oo aynu maaragtay balorta aad kasii wareysno waayo weli wareysi weyn ku jirta iyo xuquruuris weliba weegan iyo ka dambeeya practically issueskuna waayo maanta halka wax lagu go'aamin kara laakiin train bay soo jeedin waad mahadsantahay abdi aad baad adigaa mudan xaashi cabdullaahi maxaad ku dari lahayd arrinta dhalinyarada wallahi waa xaashi wax badan buu taabtay anigu waxaan oran lahaa dhalinyaradeenna wiilasheena hooyooyinka jecel yihiin haddii aan isticmaalno nidhaahno hadilin hooyada message ingiriisa ugu qorno mid walbaaba maaragtay ha dhex gelin dadka ilaali raac maaragtay guidelineska oo hadilin hooyada ha u geyn hooyada guriga hooyooyinku way jecel yihiin marsajeesaas inta isticmaalno inaan haddaan hayno social mediaha aan ugu dirno iyo waa arrin waxaan u malaynayaa dee messagekaas aan ku gaarsiin lahayn communicationka ayaa muhiim ah wax kaloo aan samayn karno waa inaan wacyigelintaas majiga saa u gaarsiinaa baan oran lahaa anugu aad baad umahadsantahay cabdullaahi siciid baraal miyaad maqlaysaa weli siciid wuu drive gareynayo waan hubaa motorigu koriyey lana buu tegeyey marka waxaa laga odhan maqlayn cabdullaahi aad baad umahadsan tahay iyo xaashi labadiina aad baad mahadsantihiin runtii waa yani dhalinyaradu goljilcdoodii baad noo taabatay cabdullaahi waxaad tidhi hooyooyinkood ba ay jecel yihiin in fariintaana la gaarsiiyo xaashiyow adna waxaad soo jeedisay in dhalinyaradii iyaga laisku diro waa run iyagaa isku dhuundaloola iyagaa isaaf yaqaana marka waxaan isku dayi doonaa aan soo jeedinayaa horta ilaa iyo inta culayskan inaga dhacaya ee bahalkan la maaraynayo dawo fiican uu inaga dhammaanayo dee dadkaynu wax la qabnayn in aynu toddobaad walba saacad sidanoo kale usoo galno oo aynu wacyigelin samayno waxna isweydaarsano waxaynu u yeeri doonaa dumarkii qolooyinka aad uga shaqaynaya arrimahan iyo ururadii dhalinyaradaba ayaynu u yeeri doonaa runtii dhalinyarada laftigooda qaar baynu uga yeeri doonaa waayo waa muhiim sababtaan markii horena waan sheegay aanu caawa 4 nin oo kaliya ugu yeedhay waayo raggii bay farta ku godan tahay waxa xanuunka guryaha geynaya waa rag waxa dhakhtarada jiifa cusbitaalada ku jira waa rag waxa u dhimanayaana rag baa u badan marka intaba in arrintaa wax laga qabto runtii aad iyo aad waana soo dhaweynaya marka waxaan samayn doonaa inaynu sii qaban qaabino toddobaadka soo socda oo aynu habli dumarkii u yeedhno dhallinyaradiina u yeedhno wixiina ay noo noqdaan wixii xoogan ay isdhaafsano waxyaalaha runtii sida xaashiyo aad sheegtayba misinformationka warbixinta qaldan ee baxaysa waxaad arkaysaa kilibya yaryar oo weliba hablo yaroo soomaaliyeed leeyihiin tallaalka waa lagugu dilayaa yaha qaadanina oo ha u dhowaanina oo social mediahii la wareejinayo taana inaynu iyadana dagaal ka galno waxaan jeclahay wacyigelintana inaynaan joojin bal waxaan doonayaa waxaa inoo harsan dhowrkaa daqiiqo aan midkiinba daqiiqadin siiyo xaashiyow intaa caawa arrimo badan baad talooyin badan baad nala wadaagtay akhbaar badanna waad nala wadaagtay maxaad caawa tala ah eed reer bista kaga tegi lahayd waad soo gabagabaynaa waa sidaad sheegtay talada ugu wanaagsan horta waxa weeyaan inta af ingiriis lagu qoray af soomaalina waa lagu tarjumeeyey haddaanad garanayn talada ugu horeysa ugu wanaagsan waxa weeyaan war waa hygiene-ta oo aad samayso social distance-ka oo aad samayso wejiga iyo mask ood xidhato horta saddex ugu muhiimsan wacanka iyo unnecessary traveling iyo inaan adigoo maaragtay aanad samaynin maaragtay aan u baahnayn ta kale waxa weeyaan hays oranin waxba ma qabtid cidu ku maqan yahay lama oga mid baa doormanta oo in the long term adigana ku dili karaa cid kalena sababi kara
iyadana hays dhiganinoo ka baraad la'aaninoo hays oranin waxba ma jiraan. It is around, it is there, meel walba wuu joogaa, hawadu ku jiraa, meel walba wuu ku jiraa. Marka qof stronga inaan iska dhigin diinteenna iyo dadnimada mid walba waxay nafaraysaa inaan cidna aad u aafayn oo aad iska ilaaliso oo adiga lagu qabsanayo haddaad taxadir la'aan samayso diinta iyo dadnimada iyo wax walba way soo gelaysaa. taasina aynu ku dadaallo mid walbana qof aan la dhalan ama adeerkii ama hataa immediate relative ka eegto qof jilicsan ama nugul ama vulnerable oo ama conditions kale loo xanuunkii u nuguli cid walba waxbuu u yahay ama ha ku dhawaado ama adeerka labada ha noqoto ama Soomaali ahaan ha noqoto ama ha noqoto dadku way isku wada xiriir wada relatives ama way dhow yihiin ama way dheer yihiin. Marka cid walba xil baa kaa saaran diin ahaan iyo dadnimo ahaanba haddaad adigu waxdaa strong isku haysato never home marayn inaad safe tahay waa kow. waa tan labaad ee aan ku soo celinayay misinformation kan fara badan ee jira ee weliba gaar ahaan iminka xagga talaalka ka imanaya waa aniga idiin sheegayo aniga loo siiyay baqasho badan karo scare egg laakiin waxaan ogaaday khasaaraha iyo balance-ka iyo balantaysu barbar dhig qofkan iska joogo ee shaqaynaya dhimanaya maxaa u diiday inuu eego dee dawladdan isku eego hadduu xataa wax ka qabo ama wax lagu yidhi maxaa ka celinaya. taasna waa barnaamij soo socda oo aan doonayno iminka inka dhakhaatiirta intaanu kala hadallo dad badanina ma oga inay warkan heleenba hadday doonaan iminka tibiyada wixii baa la xidhnoo liiska dadka u leh ee iminka u leh in appointment samaystaan annagana soo siiyay baan dhisa annagu la hadallo oo maarata aan uga caawino meesha iyo wixii oo dhan. waa barnaamij cusub iyo wacyigelin cusub oo soo baxtay iyo loo baahan yahay in laga qayb qaato iyadana dadkiisa ogaada bal anigaa sabteeda dambe gelaya inaan ku dhintay in kale horta eega oo bal hadda waan midiyahan weliba idiin iman doonaa ee markaan ka imaada meesha bal ogaado haddana wax ku noqon waayo odayga wadcirada ee baartigoobi waxba ku noqon waayo dee ka baqanay markay waqtigiina gaadho talaalka qaata baan leeyahay. waa mahadsantiin. aad baad u mahadsan tahay xaashi waan kaaga mahad celinayaa talada wanaagsan soo jeesay. Cabdulaahi maxaa tala ah eed caawa kaga tegaysaa intii hore soo sheegtay waad hadashay wax badan oo faa'iido waad u sheegtay dadka maxaa tala ah eed kaga tegi lahayd caawa reer Bristol iyo Soomaalida kalaba in la midka walaal waxaan kaga tagi lahaa walaal naftaada ilaali nafta dadka aad jeceshahay ilaali ummadda walaalaha oo aad jeceshahay ka ilaali cudurkan ina ma cad qof walbaaba ma oga inuu qabo in kale xataa haddii aad maalin ka hor lagu soo baaray oo aad negative noqotay waxaa laga yaabaa inaa maantay aad qaaday oo aad weeto aadan ogeyn. marka sida kaliya oo aad isku badbaadin kartaa ama dad kale ku badbaadin kartaa waa inaad raacdaa guidelineskaas ama waxyaalaha lagu yiri samee inaad samayso weeye oo aadan fududaysan. walaal intaas samee si dadkaaga naftaada iyo dadkaa jeceshaa u badbaadisid. haddaad u baahan tahay macluumaad dheeraada information ku saabsan cudurka ama talaalka nala soo xiriir. innaga ayaa information badan week kasta information baa naloo soo diraa oo ku saabsan waxa meesha ay marayaan waan kula wadaagi karnaa haddaad u baahato. laakiin waxaan idinkula talinayaa walaalayaal yaanan sahlanin hawl cudurku waa dhab waa jiraa wuu dilayaa dad badan oo Soomaaliya aad taqaanid inuu dilo waa maqashay markaan silaalino. Cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay runtii waxaan eegayaa masajada faraha badan ee halka ka soo dhacaya dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin dhiirigelintiina. waxaan intaan soo gabagabeen message muhiiman halkan fariimaha la soo qorayaan soo qaadayaa. Fadxiye Yaasiin Maxamuud waxay tiri Soomaalida Bristol waxay noqdeen dhan kalaad u socotaane dhagalaay wax maqal. marka u malayn maayo fariin ka culus oo ka wanaagsan in intaa lagu dari karo. aniguna waxaan odhan lahaa intaa waxaan raacin lahaa sidaa xaashigaba war fadlan waxa la yiri inaga daaye maxaa saxa aynu doonano. Cabdulaahi xafiiskoodu iyagoo xanuunkii ku dhacay ayay haddana waxay u dulqaadanayaan oo ay naftoodii u hurayaan in ay dadkii u shaqeeyaan. marka fadlan wixii akhbaara Cabdulaahi ha loo doonto ragow fadlan dadka aynu bulshada aynu hogaamino taagnaanshaha meelahan la iska daayo guryaha la joogo markaynu inagu guriga joogno dhalinyaradii way joogaysaa aabihii adeerkii abtigii markuu dariiqa taagan yahay inagu ma joogin karno. marka waxaa lainooga baahan yahay lead by example inaan tusno. waxaanu kusoo gabagabeynayaa yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun war waxaynaan samaynayn inagu yanaan odhan hala sameeyo. marka
sidaa waxaa uu sheegayna waa aayaddaa unbuu inoo sharaxay uu leeyahay anigiibaba tallaalka horta qaadanaya marka aad baad u mahadsantihiin waqtigiina aad baan idinka mahad celinayaa xaashi iyo cabdilaahi runtii waan ka howlgeli doonaa si aynu toddobaad walba u joogtayno ilaa iyo inta culayskan inaga dhaadhacayo dadkii kalena yeeri doona wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu